gudaha magaalada Garowe ee caasimada Puntland xabad ayaa ka qaraxday dagaal culus ayaana ka socda kadib markii sidaas uu tagay taliye Jimcaale Jaamac Takar ninka lagu magacaabo soo dhaweyntan kooban ayaa loo sameeyay daqiiqado kadibna rasaas ayaa isqabsatay haddaba Jaamac Takar oo dhinaca laascaanood ka soo galay Garowe wuxuu ku hoyanayaa caawa magaaladaas waxaana ciidanka maamulka Puntland Siciidani uu ku amray in dagaal culus ay ku qaadaan isla markaana laga saaro magaalada ciidankiisa ayaa difaacaya dawladda ciidan aad u badan oo halkaas ay geysay ayaa ku dagaalamaya gudaha magaalada sideebay wax u socdaan waxaan ku hayaa xog iyo macluumaad dheeriya oo soo baxaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka gudubtay marxalad haddana ay tahay dal soo noolaanay sidii lagu yaqiinaba ninkan wuu hadlay Sacuudigana dil toogasho ayuu ku fuliyay muwaadiniin Soomaaliyeed wararkaas oo dhan ayaa soo koobaya like saar muuqaalka subscribe soo dheh channelka saaxiibadana oo sii share gareey waa maasantahay waxaan ku bilaabayaa taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dawladda federaaliga ee Soomaaliya dhawaan halkaas ay geysay General Jaamac Jimcaale Jaamac Takar ayaa waxa uu gaaray magaalada Garowe ee caasimada Puntland sida hordhaca muuqaalka aad ku daawateena waxa halkaas loogu sameeyay soo dhaweyn qaybihii kala duwanaa ee bulshada ayaa ku soo dhaweysay gudaha magaalada laakiin maxaa dhacay markii la ogaaday in gudaha magaalada uu ku sugan yahay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa amar ku bixiyay in dagaal culus laga hortago waliba laga saaro magaalada Garowe ee caasimada gobolka Nugaal waxa muuqanaysa in Siciid Dani uu go'aan ku gaaray madaxweyne Xasan Maxamuud iyo waxa isaga la shaqeeyaba inuu san Garowe soo galin laakiin iyaguna markooda ay awood ku soo galayaan waxa muuqanaysa marka in xaaladdu tahay mid culus isla markaana Garowe oo muddo ka nabdoonayd dhawaqa rasaasta caawa mar kale dib loogu maqlayo dhawaqa rasaas culus iyo daryanka hub ay isu adeegsanayaan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan Jaamac Takar ku uu hogaamiyo iyo ciidanka dawladda Puntland waxa xusad mudan in dhinacyadu ay durba kala helayaan gurmadyo iyadoo oo dhinaca mudug iyo sidoo kale qaybo ka tirsan gobolka Bari dawladda federaaliga gurmadkeeda uu ka imaanayo sidoo kale Puntland ciidankeeda uu hore halkaas u joogay ciidamo uu Asad Diyaano hore u xukumi jiray ilaa haddana ka amar qaata ayaa dagaal ku soo biiray baa la yiri oo ka qayb qaadanaya markooda waxa muuqanaysa in magaalada Garowe oo ahayd magaalo amni badan isla markaana kamid ah magaalooyinka Soomaaliya horumarka ugu badan sameynaya sanadadii la soo dhaafay mar kale uu ka dhacay dagaal lixaad leh xaaladdu waxay u muuqanaysaa mid adag lamana ogo sida uu xaalku noqon doono haddaba yaa qaadaya mas'uuliyadda waxa dhaca dawladdu waxa la yiri deegaan nabdoon iyo dad nabada ayay dagaal iyo colaad ka horinaysaa oo ay markaasi dab ka shidaysaa baa la yiri halka dadka qaar ay leeyihiin Siciid Dani wuu ismahdiyay dawladnimadii ayuu halis ku yahay waana in laga qabtaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayay leeyihiin dadka qaar adigu aragti noocee baad aaminsan tahay waa maasan tahay noo reeb aragtaada geesta kale waxaan rabaa inaan kula wadaago Sacuudiga ayaa dil toogasho ah ku fuliyay muwaadiniin Soomaaliyeed waxaana la helay magacyada muwaadiniintaas boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa xukun dil toogasho ah ku fulisay 3 muwaadin oo Soomaaliyeed kuwaas oo lagu helay dambiye la xiriira tahriibinta maandooriyaha sida lagu sheegay war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee wadankaasi sida bayaanka ku xusan 3 qof ee la toogtay ayaa lagu eedeeyay inay si qarsoodiya gudaha Sacuudiga u galiyaan maandooriyaha gaar ahaan xashiishka iyaga oo ka soo gudbiyay xuduudda dalka Sacuudiga uu la leeyahay dalal badan oo ay ka mid tahay Yemen maxkamad ku taal wadankaasi ayaa sheegtay in dambiyada loo haysto raggan lagu helay kadibna lagu fuliyo xukunka dilka toogashada ah magacyada 3 nin ee la toogtay ayaa kala ah Axmed Aadan Cabdi sidoo kale ninka lagu magacaabo waa Axmed Aadan Cabdi Ibrahim waa muwaadinka koobaad halka muwaadinka lagu magacaabo Axmed Maxamuud Ismaaciil Cabdiraxmaan iyo Maxamuud Cabdiraxmaan Xasan dawladda Sacuudiguna waxay xaqiijisay in dhammaan eedeysanayaashan ay yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu helay faral la xiriira tahriibinta maandooriyaha iyo in ay soo galiyeen gudaha Sacuudiga maandooriyaha qofka Sacuudiga gudihiisa galiyana xeerka u yaala waa dil toogasho ah qofkaas
fariinta xukunkan ama fulinta xukunkan baan idhaahda ayaa ka dhacday gobolka Najraan ee koonfurta Sacuudi Carabiya kaas oo xuduud la leh dalka Yemen. qoraalka ay baahisay dawladda Sacuudiga ayaa tilmaamaya in ragga lagu qabtay deegaanka buuraleyda ah ama deegaan buuraley oo ku dhow xadka ay wadaagaan dalalka Yemen iyo Sacuudi Carabiya xilli ay isku dayeen inay gudaha dalkaas galiyaan walxaha maanka dooriya. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa muddo dheer waday olole adag oo ka dhana ka ganacsiga tahriibinta maandooriyaha iyadoo mas'uuliyiinta dalkaasi ay marar badan ku soo celceliyeen in qof kasta oo lagu helo dambigaas la marsiin doono ciqaab adag oo waafaqsan shuruucda dalka Sacuudi Carabiya. xeerarka uu markaasi ku dhaqmo Sacuudiga ayaa ka mid ah kuwa ugu adag ee dunida waana dambiyada la xiriira maandooriyaha oo waxa ay dhigteen dastuur iyaga u gaara oo sheegaya in qofkii maandooriyaha ka ganacsada tirka toogashada la geeyo ama la daldalo. waxaana dadka lagu hela dambiyada qaarkood lagu xukumaa dil kadibna waxay maraan heerar kala duwan ee garsoorka dalkaasi. xabsiyada Sacuudi Carabiya waxaa ku xiran ajaanib badan oo ka soo kala jeeda dalal kala duwan oo Afrika u badan Soomaali ayaana kamid ah. kuwaas qaarkood waxay ku eedeysan yihiin in si sharci darro ay ku galeen dalkaas hal kuwa kalena ay ku eedeysan yihiin falalka noocan oo kala ah oo tahriibinta maandooriyaha iyo waxyaabo la mid ah. dalalkan ayaa markaasi waxa ay yihiin kuwa walwal badan ku abuuraya Soomaali badan waxaana xiran 200 oo muwaadiniin Soomaaliya kuwaas oo dhammaantood lagu soo eedeeyay inay ka ganacsadeen walxaha maanka dooriya Sacuudiga agtiisana ka dambi weyn. dadka Soomaaliyeed dawladda federaaliga ee Soomaaliya waxay ugu baaqeen in ugu yaraan raggaas dhalinyarada ay soo furfurto isla markaana Sacuudi Carabiya ugu yaraan laga maslaxo ama dalkaas laga soo tahriibiyo ama laga soo qaado oo la keeno dalka Soomaaliya inaysan dib u gali karin markaas laga shaqeeyo oo Sacuudi Carabiya dambe aysan dib ugu laaban karin. si kastaba ha ahaato ugu dambeyn hadda raggaas waa la toogtay 3 nin oo Soomaaliya ayaa jirta oo iyaguna horey loo toogtay sanadkii ina soo dhaafay ee 2020 sanadka 2020 kana waa 3 qof ee ugu horeysay 200 oo kale ayaa dhammaantood iyaguna dil toogasho ku xukuman. waxaan leeyahay dawladda federaalku waa inay ka gaartaa dadkaas isla markaana dawladda Sacuudiga oo ay xiriir wanaagsan la leedahay ugu yaraan ay ka badbaadisaa dhalinyarada Soomaaliyeed. dabcan uu dhici karaa gafka qofka bini'aadamka uu ku kici karaa dambi oo noocaas laakiin ugu yaraan waxaa mudan baa leeyahay in dawladdu ay u muujiso garab istaag.